marka guurku sidiisaba wuxuu ku qorxoon yahay dadku inay iyagu isjeclaadaan, iyagu soo sheekaystaan, isa soo dabeecad fahmaan, iyagu isa soo jeclaadaan. Guurku marka saas lagu bilaabo ayaa wax badan oo wanaagsan u dhalin karaa ama laga sugi karaa. Horta marka u horeysa waxaa la eegaa wax yacni maadaama aad doonaysid guur qurux badan in aad heshid, waxa meel dhow wax lagama eego. sida haddeer qofka inaad ku dooratid oo kale qurux kaliya, ama qofka aad ku dooratid wax interest la yidhaaho, yacni qofkan ku dangaar ama ku meel gaar oo kale. waa sida dadkeenu u badan yihiin in qofka ama qurux la iskaga guursado, qofkii adigoon xitaa adoo og dabeecadiisu iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu iyo qofkaas waan ku arkay, waan ku caashaqay meel odhan jira lagu guursado. ama qabiil oo kale qaraabakiil lagu guursado. waxyaabahaas oo kale waxyaabo nolosha runtii muhiim ka noqon kara ma ahan. qurux, interest, lacag, qabiil, waxaas wax yacni nolosha quseeya ma aha ama nolosha qurxin karaya. laba beri laga yaabee, laakiin nolosha marka la isdhex galo oo nolosha runta ah ma macaanaanayso. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha dhamaantiin meel kasta oo dunida caladeeda aad ka joogtaan, waan idin salaamayaa. salaan waxaan idin soo dirayaa diiran ayaan hawada idin soo marinayaa meel kasta oo joogtaan. waxaan markasta aan u mahad celinayaa walaalaha sida gaarka igu xiran ee programmadayda aadka ugu xiriirsan, ee aadka ula socda, ee markasta commentiga quruxda badan ii dhaafa, ma aragtay aad iyo aad programmadayda u xiiseeya. waad salaamantihiin yaa si gaar ah. waxaa kale oon salaamayaa asxaabta ma aragtay cusub ee igu soo biirtay. asxaab badan oo channelkayga kusoo biirtay ayaa jirta, iyo kuwa kusoo biiri doontaba ma aragtay future-ka. soo dhawaada walaalayaal, gacmo furan iyo qalbi furan iyo laab furan kusoo dhawaada. magacayga waxaa la yidhahdaa Nimca Galaam. channelkaygan waxaan kusoo gudbiyaa waxyaabo aada u kala duwan oo ma aragtay dhinac kasta anfacaya. fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad markasta aad commentigiina quruxda badan aad ii dhaaftaan, wixii su-aalo ah aad ii soo gudbisaan, wixii aragtidiina ah. ilaa waxaynu kala faa'iidaysanaynaa, keligay malaygama faa'iidayo, idinka wax baan idinka faa'iidaya soo maa. waxa aniga iga maqan idinku idinku jiraa, waxa idinka maqanna waxaa laga yaabaa in walaashii Nimco uu ku jiro. waayahay, markaan intaa ka gudbo, programmo aada iyo aada ma aragtay talantaali u ah oo isdaba joog ah ayaan idin soo gudbin doonaa insha allahu tacaala. markaa ila socda markasta ma aragtay ha iga ilaawina inaad suulasha taagtaan haddaad programka ka hesheen, si dad badan uu u gaaro. inaad channelkayga aada subscribe ii saartid ood igu soo biirtid, aad baan taana u jeclahay. ma aragtay gambaleelka inaad furatid si mar alaalaya markaan video soo dhigaba aada horey ula socotid oo ma aragtay uu horey kuu soo gaaro. taana waan idinka codsanayaa. waayahay, intaa markaan ka gudbo, caawa talow Nimco maxay idin haysaa? ya program waxaan caawa idin hayaa runtii xasaasi ah, u baahan wax laga hadlo, in laga hadlana mudan, waayo waa qodob aada iyo aad muhiim u ah. talow qodobkaasi muxuu yahay? ya qodobkaasi waa qodob guurka la yidhaaho, doorashada guurka. haddaynu Soomaali nahay, bulshadeena in badanba waxaa ku badatay guur magacuyaal ah. ya guur magacuyaal ah, guuraan jacayl lahayn, guuraan isqiimeyn lahayn, guuraan farxad lahayn, guur yacni dee ilaahay xaarkiisa u garanayo oo la yidhaahdo magacuyaal. ya waa jiidan ku jiide nooc minal guur ayaa inagu batay. guurarkaasoo kalena runtii waa laga guur la-aadaa. waxaa kugu dhaanta adigoo singala
oo nolol farxad leh oo happy ah oo stress free ah ku nool ayaa lagu qaatay taas kuley waa ra'yigayga qof walba waxa u shaqeeya marka doorashada guurku maxay tahay haddii aadan maaragtay aadan doonaynin in guurkaagu uu noqdo guur magacuyaal ah guur ma aragtay ijeedan ku jiide ah haddii aadan doonayn guurkaagu inuu noqdo maxaa markaa quman in la sameeyo horta qoladii already kashay ma aragtay badda ku jirta ilaahay idin sahlo ma aragtay ilaahay faamiliyada Soomaalida faamiliyadeena ilaahay raxmad ha dhex dhigo meel kasta oo ay joogaan kuwa laakiin haddeer ka bacdi guur raba inay aasaasan ama guursan doona ama dareenkaa ku jiro maxaa inala gudboon ya waa su-aal u baahan in la isweydiiyo sooma waayahay horta guurku waa wax ma aragtay marka si loo eego qof waliba wuu guursan karayaa oo yacni actionka waad ku dhaqaaqi karaysaa oo wax fudud marka si loo eego guurku marka si loo eegana guurku waa wax aada u adag oo waliba qofku dee hadduu rabo guur guurarka laynoo sheegay ah wanaagsan waliba diinteena laynoogu sheegay waxaa la yidhi guurku waa inuu noqdo guur mawada iyo raxmo ah weeyaan guurku jacayl iyo naxariis iyo wax walba leh diinteena inoo sheegtay cilmi maadiyanka markaad baratidna guurku waxaa ma aragtay waliba guurarka wanaagsan waxaa lagu tilmaamaa yacni waxay leeyihiin astaamo gaar ah iyo saasaan iyo dhadhan gaar ah ayuu leeyahay guurka wanaagsani taasna maadiga waynu ku aragnay diinteenana way noo sheegtay in haddii la isguursanayo la wada joogo si fiican loo wada joogo ama in ma aragtay dee ilaahina bad yacni arlada wuu weyneeyey in la kala fududaado haddii la isku dhiban yahay taana diinteenu way inoo soo dejiso waa laynoo sheegay waayahay marka guurku horta marka u horeysa qodobka u horeeya aan rabay inaan ku bilaabo waxaa weeyaan doorashada guurka haddaad rabtid guur wanaagsan oo kalgacal leh oo raxmad leh oo ma aragtay ixtiraam leh oo rabitaan leh oo jacayl leh oo dee wax kasta leh ya haddaad doonaysid waxaa wanaagsan guurka inaad ka fiirsatid guurkuna yacni waxyaabo wuxuu leeyahay lagu choose garaysto ama waxyaabo ma aragtay lagu doorto ayuu guurku leeyahay waxaynu ka hadlaynaa qodobada doorashada guurka waayahay kow marka u horeysa waa inaad baahidaada og tahay qof walba baahi buu leeyahay oo ilaahay siiyey uu ku abuuray baahidaada marka hore waa inaad og tahay waxa kaa maqan noloshaada lifestyleka haddeer aad ku nooshahay waxa kaa maqan iyo waxaad doonayso waa inaad marka hore aada og tahay baahidaada iyo wixii cover garayn lahaa ya ilan guur ma tahay ma rabti soo ma ya waayahay taasi waa qodobka koowaad qodobka labaad ayaan u gudbayaa qodobka labaad waa inaad og tahay qofka aad dooranaysid waxa aad ku dooranaysid qofkii waa inaad ku dooratid wax muhiim ah oo nolosha dhabta ah yacni wax xagga dabeecadda oo kaleeto xagga qofka ma aragtay dhaqankiisa xagga ma aragtay qofka akhlaaqdiisa qofka akhlaaqda laga eegaa akhlaaqdiisa qofka diinta laga eegaa qofka bal iimaankiisu diintu sida uu ku yahay waa waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay nolosha ku salaysan weeye waa inaad markaa og tahay waxa aad rabtid iyo dee qofka quruxdiisa qofku waxa way qofku u baahan yahay qof walba qof qurux badan inuu kasoo akaco soo ma ya taasina waa wax meesha ku jira
laakiin waxyaabahaas muhiimka ah oo dhan ayaa tahay inaad qofka aad ku dooratid ama aad ogtahay marka hore waxa aad doonaysid. xishoodka waxyaabaha noocaasa waxa baryahan dambe socotay in la isku guursado ama qabiil oo kaleeto ama yacni qurux qofku wax beyond daada ayaan ku jirinba. qurux iyo maaragtay iyo qabiil qofaad ku guursatay ama lacag waxaas waa wax maaragtay interest ah. lacagtu way dhamaan kartaa quruxdana way baabi'i kartaa. maxaa la oranayay qabiilla wuxuu taraya ma jiro. dad sokeeyo yani iyo qaraabo keli wax noocaasa dad aaminsan baa jira. marka waxa intaad iska ilowdid waxyaabaha muhiimka ah ay tahay inaad guurkaaga aad ku dooratid qodobadaasaan idin soo sheegay weeyaan. waxa muhiimka ah qofka duntiisa ayaa laga eegaa. qofka duntiisa sida uu yahay ayaa laga eegaa shaqsigiisa. waayahan taasi waa qodobkii labaad. qodobka saddexaad qofka inaad isku page tihiin ood qofka aad isku level markaa nolosha aad ka maraysaan. waayo taas waxay kuu fududaynaysaa qofkii inaad more isa sii fahantaan ood isla sii jaan qaadaan oo ma aragtay aad qofkii aad saa uliya diir aad isku noqotaan oo dee more common ayaa idinka dhaxaynaya. haddii aad qofka isku si nolosha u aragtaan ama aad isku baab tihiin marka qodobadaas oo dhan ayaa guurka ay tahay in laga eego. waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay guurka in ma aragtay qofka lagu dooran karayo waxyaabahaas ayaa ka mid ah. laakiin innaga markaan usoo noqdo guurarkan magacyaalka ah waxaa inagu badiyey guurarkan magacyaalka waxaa inagu badiyey waxaa weeyaan kow marka u horeysa dad xitaa waxaa jira la isku daro oo iyagoon isjeclaan iyago oon isa soo baran iyago oon isdhaqan aqoon. xitaa qofkii markaad berita la kulantid qaabka yani qaabkiisaba aadan ka helayninba ma ogtaha. taasi doorashaday ka mid taha qofku inuu yani uu kusoo jiito oo qof walba dooq buu leeyahay. dooqa cajiibaa la yidhi. qof aadan dooq ahaanba aadan salaantaba ka qaadeen ayaa lagugu darayaa haddii la doono ma ogta. marka anigu waxaan ka hadlayaa guurka jacaylka la isku guursado. waayo guurkaasi uu kala duwan yahay guurarka kale. haddii qofka dadka la isa siiyo oo kale ama qof dee guur ma tahay ninoo nin ma tahay naagoo naage ma tahay oon baahidiisaba ogeyn ama guur yani raasamaal ahoo wanaagsan oo uu ma aragtay inta noloshiisa inta ka dhiman uu isleeyahay guurso. maxaa la oranayay guurkaas weeye guurka jacaylka ah. marka qof walba adaa baahidaada og. kulley qoysaska Soomaaliyeed wixii dhiban oo aynu u ducaynaynaa ilaahay ma aragtay ha ka dhigo khayr ha uga dhigo ilaahay ma aragtay ha isku xasiliyo familiyada. laakiin muhiimaddu waxay tahay guurku inuu qurux weeye guurku ma aragtay waa wax aad u wanaagsan haddii aad heshid qofka saxda ah. marka guurarkan magacyaalka ah haddii aan la isku faraxsanayn noloshu waa laba cisho dee ilaahay wuxuu soo dejiyay in la kala socdo oo la kala dhaqaaqo oon la isku dhibtoonin. marka kulli qof walba adiga dawadaada og. waxaan idin rajeynayaa ma aragtay inuu ilaahay familiyada isku aslaaxiyo oo jacayl iyo muwada iyo raxmo u dhigo. haddii la isfahmo waayo banaanka la kala marna dee dhibaato ma leh ma aragtay oo la kala nafiso. dhalinyarada cusub ee ma aragtay singalada ah oo raba hadeer iyo kabacdi inay guursadaanna talooyinkaas ayaan ma aragtay aan idinku biirin lahaa. hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen programka. haddaad dooneysaan programo noocyadan oo kale ah ama programo aad xiisayn lahaydeen inaan hawada idin soo mariyo iisoo gudbiya. waxaan idin rajeynayaa ma aragtay inaad dhammaantiin aad faraxsan tihiin. aad baan ugu faraxsanahay inaan hawada kusoo noqdo oon programadaydii runtii
aan idin soo gudbiyo wax badan ayaana soo socda ee ha sugi waayana intaan ku kulmi doono programkan ka xigi doona waxaan idinkaga tegayaa aniga oo nimco ah salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu